kusoo dhawaada channelka Sagaalka Media qodobadeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin madaxweynaha Soomaaliya oo kafaalo qaaday nolosha carruur dhalinyaro dhintay. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawaad ayaa shalay gaaray magaalada Nairobi halkaas uu kula kulmay dhigiisa Faisal Omama. Faahfaahin dheeraad ayaa ku maqli doontaan. wararka dibaddan waxaa ka mid ah Mareykanka oo shaaciyay inuu joojinayo duulimaadyada uga yimaada dalalka Yurub sababo la xiriira caabuqa corona. magacaygu waa Maslax Nasiib. fadlan haddaan ugu cusub tahay channelkan subscribe nasa si aad noola wadaagto wararkeena ugu dambeeyay. haatan kusoo dhawaada warkii faahfaahsan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbitaalka Yartamile ee magaalada Muqdisho ku booqday qoys uu ka tegay Allah u naxariistay Cabdinaasir Cabdullaahi Gacal oo ahaa wariye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo shabaab ku dilay degmada Owdheyle ee gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee labada wiil ee mataanaha isbitaalka Yartamile ku dhashay marwada uu ka geeriyooday marxuumka wariye Gacal ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay damaanad qaadayso nolosha ubadkan. madaxweynaha ayaa sheegay in Allah u naxariistay marxuum Cabdinaasir Gacal uu naftiisa u hubiyay difaaca dalkiisa iyo dadkiisa isagoo xifradiisa wariyenimada garab taagnaa xaliyaasha kale ciidamada qalabka sida ee safka hor kaga jira furmaha dagaalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale dhaqaatiirta ku howlan daryeelka caafimaad ee Mustafa iyo Maxamed oo ah labada wiil ee mataanaha ah ee uu dhalay. marxuum Gacal iyo hooyada xaaladooda caafimaad ka wareystay waxayna sheegeen inay aad u wanaagsan yihiin. Shamse Maxamed Amiin oo ah hooyada dhashay Allah u naxariistay wariye Cabdinaasir Gacal ayaa madaxweynaha ugu mahadcelisay garab istaaga uu sameeyay qoyska marxuumka, waxayna sheegtay wiilkeeda uu ahaa shakhsi waddankiisa jecel oo ay ka go'an tahay difaaca dalkiisa. Allah u naxariistay wariye Cabdinaasir Gacal ayaa 14 bishii Agoosto ee sanadkii hore ku geeriyooday degmada Owdheyle ee gobolka Shabeellaha Hoose xilli uu qaranka u shaqaynayay kadib dagaal halkaas ku dhex maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu ka tirsanaa. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawaad ayaa shalay magaalada Nairobi kula kulmay dhigiisa dalka Kenya Faisal Omama. kulankan ayaa yimid iyadoo toddobaadkan ay dowladda Soomaaliya iyo Kenya wadeen dadaal ay ku doonayaan inay ku dejiyaan xiisadda labada dal muddo ka dhex ogneyd oo dhawaan ay ka dartay kadib dagaal ka dhacay xuduudaha. dadaaladaasi waxaa qayb ka ahaa safar uu dhawaan Muqdisho ku tegay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Kenya, iyadoo sidoo kale la filayo in madaxweyne Farmaajo uu booqdo Nairobi. Axmed Ciise Cawaad oo faahfaahiyay kulankii shalay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa: waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda sidii loo dhammayn lahaa oo loo yareyn lahaa iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa. annagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo. nabad iyo daris wanaag waxay dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. marka hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen waxaan rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. marka ma jirto guarantee, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru madaxweynahana u soo diray oo kula kulmay wadahadalka yeesheen iyo anigu maanta dhigayga Ambassador Faisal Omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda aniga iyo tiimkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda waxay nigelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si toos u shaaciyay in dowladdiisa ay joojinayso duulimaadyada iyo socodka uga yimaada dalalka Yurub sababo la xiriira caabuqa dunida oo dhan ku sii faafaya ee corona. wuxuu tilmaamay in fayraskan corona uu gudaha Mareykanka ay dad badan ugu dhinteen kuwo kalena uu ku haleelay weliba iyagoo guryahooda jooga, isagoo caddeeyay in tallaabadan ay doonayaan inay kaga hortagaan faafitaanka caabuqa corona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu tilmaamay in xayiraadan ay dhaqan galayso Jimcaha berito ah islamarkaana ay socon doonto muddo 30 cisho ah maadaama duulimaadyada ka yimaada Yurub ay soo aadan Mareykanka ay aad u badan yihiin ayna muhiim tahay in laga hortago caabuqa corona. sidaas ayuu ku sheegay khudbad uu si toos uga jeedinayay warbaahinta. daawadayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynaa wararkeena warka xigeentaa kulmi doona waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo